haylaabin inaad subscribe tiraahdo si aan halkan ugu wada xiriirno rasmi Chelsea waxay la wareegtay ciyaartooyga Matteo Kovacic sida darkaysaan oo Kovacic ayaa amaah ugu soo wareegay kooxda Real Madrid وصحيح كلاو تشيلسي سميسي سوق انتون وحرمين حلو waxay la wareegeen gool haye Keba oo ay kula wareegeen heshiis qaali ah oo wuxuu noqday gool haye ugu qaalisanaa kubadda cagta ama kamal daariga oo dhanba haddana nin kale oo ciyaartooy ku darsadeen waa Kovacic marka waxaad moodaa in Chelsea suuqeeda kala iibsigu uu soo xirmay inta caawa ka dhimanba waxay iska raadin doonaan difaac cusub inay kooxda ku soo daraan rugaani bay wiil raadinayeen difaacyo kale kulay marka waxay u badan tahay in suuqa Chelsea gabi ahaan uu maalin cad ba soo xirmayo suuqa maadaama uu caawa xirmayo wax badan oo hadda sida ugu baahan baanu jiri doonino marka blue ninkii Kovacic ahaabay gacanta ku dhigeen waa maalintii suuqa kala iibsigu xirmi lahayd baa lagu jiraayo Didlan Daygo ayaa lagu jiraayo Kovacic ama uu kooxdan ugu wareegayo taas waxay ka dhigan tahay in goordhow malahayn ku dhawaaqi doono soo bandhigi doono saxiixa ciyaartooyga Thibaut Courtois isaguna Madrid ku beeri doono macnaha heshiiska kan waa isku xirnaayo waa heshiis isku xiran oo dhinacyada kan ee Chelsea iyo Real Madrid ay sameeyeen oo يعني نيكا كانوا هذا وحنا نقضي عيارتو كاترسان كو هذا تشيلسي كوفيسيج وتشيلسي وبيا كارت وان اركي دوناي وخي كلو سو كوردha goordhow oo maanta